بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا سومالي كيبل إذن كاغا إيمانيا استوديوها مقالة نيروبي waxaana u diyaaraanigo Cabdullaahi Axmed Cali qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu door korona waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu kulan kula qaatay gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray magaaladaasi. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun waxa ay ku riday darawal ku eedeysnaa fududeynta agab la sheegay in loo waday hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab. jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow warka ku daawan doontaan ee diyaar garooba. shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan waxa uu la qaatay gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb. faafahinta warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Saleebaan Raage. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo fariisin ku meel gaar u ah mudooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxa tagay labada gudoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, aqalka sare iyo golaha shacabka. Sheekh Aadan Madoobe, gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxay u tageen madaxweynaha oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. booqashadooda waxaa xigay kulan dhex maray madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii ay hogaaminayeen labada gudoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Villa Soomaaliya waxay warbixin ka soo saartay kulankan maanta ka qabsoomay magaalada Dhuusamareeb. madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magaalada Dhuusamareeb kulan wadajir ah kula qaatay baaliir gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan. kulankan waxaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay in loo midoobo baaliirada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu warbixin ka siiyay gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka guulaha uu ka gaaray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo bilii la soo dhaafay si xawli uga socday deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. madaxweynaha waxa uu la wadaagay mas'uuliyiintan sida dowladdiisu ay uga go'an tahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. dhinaca kale gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo Dhuusamareeb tagay waxa la sheegay inay u tageen dhiirigelinta ciidanka iyo garab istaaga dowladda ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha waxay ku bogaadiyeen doorkiisa hogaamineed iyo sida muhiimadda koobaad uga dhigay baaliir dagaalka Al-Shabaab, iyagoo xusay inay si buuxda u garab taagan yihiin ciidanka amniga qaranka ee dagaalkaasi ku jira. Salaaman Xaaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun waxa ay ku riday darawal ku eedeysnaa fududeynta agab loo waday hogaamiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. faafahinta warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Bushra Bashiir Cabdi. inta markaan imaaday oo gaariga lawaaji aan saartay rarkan iska dajiyay oo xaafadda aan sii socdo niman ay hor imaadeen oo baaris ku socda. gaariga la baaray kaartoonka muxuu yahay, kaartoonka waxaan dhahnay wuxuu yahay ma fiirinaba. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta go'aan ka gaartay kiiska darawal ku eedeysnaa fududeynta agab loo waday hogaamiyaasha Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay maxkamadda oo lagu soo koobay xogta eedeysanaha iyo xukunkiisa. Jamaal Yaasiin Xasan Yaasiin ayaa ka ahaa darawal gaari ka shaqeeya Kismaayo iyo Muqdisho. waxaa jirib looga soo dhiibay agab loogu dhunto diyaaradaha arageeda maalintii iyo habeenkii. agabkaasi oo loo yaqaano emergency space blanket si uu u geeyo suuqa Bakaaraha, balse waa laga korbaxay oo looma sheegin cidda iyo meesha saxda ah uu geynayo. ciidamada amniga ayaa ka soo xiray deegaanka Ceelasha Biyaha 8 bishii May ee sanadkan. baaris dheer kadib xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa codsaday mudeynta kiiska waxaana la ogolaaday 16 bishan. garsoorka maxkamadda ciidamada oo waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta ku xukuntay Jamaal Yaasiin Xasan Yaasiin 5 sano oo xabsi ciidan ah. sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.
Bushra Bashir Cabdi, Somali Cable TV, Muqdisho. jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka. warkan faafahintiisa waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Anas Maxamed Soomane. sanad kasta 22 bisha September adduunka oo dhan waxa looga dabaaldegaa maalinta nabadda adduunka. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay wadamada safar dheer ugu jira helitaanka nabad waarta. munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinta nabadda adduunka oo maanta ku beegan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. xuska munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabisay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay, waxaana sanadkan halkudhig looga dhigay in si guud looga wada shaqeeyo ujeedooyinka iyo caadooyinka guud ee dunida. xuska munaasabadan waxaa ka qayb galay madax sare oo ka socotay qaramada midoobay, la taliyaha dhaqaalaha qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, kana tirsan golaha dhaqaalaha qaranka, sidoo kalena ah wakiil u fadhiya jaamacadda qaramada midoobay Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka, mas'uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka, madax kala duwan oo ka socotay hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee DAD, safiir ka socday dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya, xeel dheerayaal, aqoonyahan, bahda jaamacadaha dalka, saaxiibada ka socday beesha caalamka, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. la taliyaha dhaqaalaha qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud, ayaa ka warbixiyay shirkan isagoona tilmaamay in Soomaaliya ay muhiim gaar ah u leedahay xuska maalintan, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd yoolka ay higsanayso. xuska maalinta nabadda adduunka oo ku astaysan maanta oo kale 21 bisha September oo ah maalin laga soo bilaabo 1981 ay ahayd maalin adduunyada go'aan qaramada midoobay ay ku gaartay in maalinka loo asteeyo in laga shaqeeyo nabadda iyo in loo wada istaago joojinta maxaa la yiraahdaa dagaalada iyo colaadaha. muhiimadda maanta ay leedahay waxay ku astaysan tahay in sanad kasta la qaato halhays u gaara. sanadkanna waxaa halhays u ah maalinta nabadda adduunka in laga wada shaqeeyo ujeedooyinka horumarinta guud ee caalamiga ee adduunyada ee ama af Ingiriisiga loo yaqaano Sustainable Development Goals. waxaa soo abaabulay xafladan jaamacadda qaramada midoobay ee nabadda oo ah jaamacadda ay Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay aasaastay 1980 qaraar Jamciyadda Qurumaha ka soo baxay oo 535 ahaa kaasoo lagu aasaasay jaamacaddan ay ka shaqeyso dhammaan qaaradaha caalamka, ayna joogto wax ka badan ay leedahay kambasyo ka badan 52 kambas oo adduunka dhan ku yaala. xarunteeda ugu weyn ay Costa Rica tahay, Muqdishona ay ku leedahay xarun weyn. Dr. Maxamed Yuusuf, gudoomiyaha jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay, ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedooyinka shirweynahan iyo shaqada guud ee bulshada u hayso jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay. qaramada midoobay ay u astaysay maalinta nabadda adduunka in jaamacadda nabadda oo iyadana ah jaamacad ay aasaastay qaramada midoobay inaan halkan ku xusno qiimaha ay leedahay maalinta nabadda adduunka oo ay u leedahay waddankeena Soomaaliya iyo adduun weynaha oo dhan. maantay maalin ay kaga baahi badan tahay in nabad waddankeena ay ka dhacdo ma soo marin. waxaan rajaynayaa in sanadkiisa in guul weyn laga gaaro dagaalka lagula jiro khawaarijta. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay muhiim gaar ah siinayso dhinacyada amniga si loo arko ayuu yiri Soomaaliya oo nabad ah. xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda, sidaad ogtihiin nabaddu waxay aasaas u tahay nolosha aadanaha ku nool caalamka oo dhan, gaar ahaanna Soomaaliya oo sanooyin badan oo soo martay colaado ah waxay nabaddu u leedahay muhiimad aad u ballaaran. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay muhiimad siinaysaa in Soomaaliya amni noqoto, in Soomaaliya nabad kula noolaato dalalka deriska iyo caalamka intiisa kale. sidaad la socotaan waddanka waxaa ka socda howlgallo dhinaca militariga ah
oo dowladda federaalka hogaaminayso oo la doonayo in lagu ciribtiro qawaariijta ama argagixisada nabadda u diida dadka Soomaaliyeed taa micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliyeed ay muhiimad siinayso nabadda loona baahan yahay in meel kasta oo carqalad ay ka jirto ay dowladdu xal u hesho ugu dambeyntiina la gaaro xal waara oo Soomaalida oo dhan ay ku noolaato marka ay Soomaaliya nabad buuxda hesho waxay ka dhigan tahay in aan horumarka dhinaceeda aan markaasi diiradda saari karno ana Soomaali Cable wafdi hordhac waa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi waxaa ku soo dhaweeyay jaaliyada Digil iyo Mirifle ee wadankani Kenya wafdi hordhac waa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicaziz Maxamed Laftagreen oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxaa ku soo dhaweeyay jaaliyada Digil iyo Mirifle ee wadankani Kenya wafdiga la socday gudoomiyaha ayaa waxaa kamid ah senator hore Cabdikaafi Macalin Xasan la taliyaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Maxamed CD iyo wasiirka cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed Ibrahim Maxamed Aadan Najax ugu horeyn soo dhaweynta waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee jaaliyada Digil iyo Mirifle nabadoon Cabdi Barre iyo mas'uuliyiin ka tirsan jaaliyada annagoo ah jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya si wada jir ah waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa wafdiga ballaaran noogu yimid oo maxaa la jiray Soomaaliya wafdigaas oo uu hogaaminaya senator Cabdikaafi Macalin Xasan gudoomiyaha golaha sare beesha siyaasiyiinta iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Maxamed Ibrahim Barre la taliyaha madaxweynaha Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynayaa magaca jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya soo dhawaada magaalada Nairobi ku soo dhawaada maanta waa maalin aad weyn waa maalin farxadeed waa maalin qiimo badan waa maalin maalmihii hore ka duwan waxaan rabnaa inaan halkan ku soo dhaweyno wafdi aad u ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo la taliyaal madaxweyne ku jiraan wafdiga runtii qiimaha iyo qaayaha mudan oo runtii Digil Mirifle iyo si guud dadka deegaanada koonfur galbeed oo dhan aad ugu weyn ayaan rabnaa inaan maanta halkan ku soo dhaweyno waxaan leenahay ku soo dhawaada Nairobi magacaygu waa Xasan Nuur Xasan ku-xigeenka gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed ee Kenya munaasabadan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Kenya wafdi nooga yimid maanta ismaamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wafdigaas uu hogaaminayo gudoomiyaha ama gabanaha gobolka Shabeellaha Hoose maanta waxa meeshan iskugu imaanay inaan soo dhaweyno wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre iyo gudoomiyihii hore gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir CD senatarka hore dowladda federaalka Soomaaliya Adeer Cabdikaafi waxaan leeyahay soo dhawaada diidan ka faraxsana dhammaan gudoomiyaheena la taliyaha madaxweynaha senatarkeena ma sha Allah wax dhawaad doontan qoyni ay guddiga jaaliyada Digil iyo Mirifle gudoomiyaheena iyo dhammaan maamulka isla soono iyo gudoomiyaheena hore marka may hadhawaayeen ay wafdi ku socdo geeka shaqada koonfur galbeed Digil iyo Mirifle ee diidan ka mahadsan waan hadhawaayeen waxa aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyo madax iyo wafdi noogu socday maamul goboleedka koonfur galbeed uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose wasiirkeena Najax adeerkay senator Cabdikaafi la taliyaha madaxweynaha Cabdiqaadir CD soo dhawaada idin leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa aan ku soo dhaweynayaa martada sharafta leh nagu timaade Soomaali كو adeer Cabdikaafi Macalin Xasan senator Soomaali gudoomiyaha ko Shabeellaha Hoose master ninkii leeyahay Cabdiqaadir CD iyo marti sharaf kale dhamaanteen waa idin salaam boqolkiiba farta idin ku salaamay walaakin iyo jaaliyad gudoomiyaha Nakeer Xasan gudoomiyaha Cabdi Baare iyo Xasan Nuur
inta halaalintii axsaabta ah tolka hadalka waa furan yahay markaan afhayeenka waxna markaan hadalka waa furan yahay dhinaca kale gudoomiyaha jaaliyadda Digli Mirifle ee wadankani Kenya mudane Maxamed Khayr Xasan Jimcaali ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in magaalada Nairobi ay ku soo dhaweeyaan wafdiga hordhaca u ah madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya. awalan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ya mahad iska leh waxaan soo dhaweynaynaa maanta wafdiga balaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre iyo sidoo kale senatarkii hore iyo sidoo kale gudoomiyaha hore gobolka dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada wadanka Kenya khaasatan magaalada Nairobi jaaliyadii wad u jeedaan sida wanaagsan quruxda badan ee idin soo dhaweysay waxa jooga gudoomiyaha hore jaaliyada anigoo ah gudoomiyaha jaaliyad iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenkii afyeenkii ogaaskii guud Digli Mirifle ayaa joogo oo ma artay waxay u soo baxeen dhalinyarada iyo ma artay waxgaradkan inay idin ku soo dhaweeyeen magaalada Nairobi. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre iyo senator hore Cabdikaafi Macalin Xasan ayaa uga mahad celiyay jaaliyadda Digli Mirifle ee wadankani Kenya soo dhaweynta ay u sameeyeen. maanta sharaf weyn ay ii tahay soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha badan midaan islaha intaanay gaari doontaa ma aha waa filayay in la soo dhaweyn doono laakiinse intaan heerkan saas weyn inay gaari doonto maanan u maleynaynin balse aad iyo aad ka mahad celinayaa sida sharafta la ay u soo dhaweyseen wadankayga labaad magaaladayda labaad caasimadayda labaad dalkayga labaad amaanta ku tashanaa uu yahay waxaan rajaynayaa insha Allah intaan joogo inaan wada kulmi doono madaxa ahaadaan shacab ha ahaadaan dhalinyaro ha ahaadaan jaaliyadda ha ahaadaan kulligood wada kulmi doonaa waqti fiican aan wada qaadan doonaa waa safar dheer ayaan ku imaanay insha Allah anaga iyo wafdigeenaba waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan soo dhaweyntaan soo dhaweyseen kaliya si ku ekaanne aan waqti badan wada qaadan doono insha Allah aan iswareysan doono wax alaala wixii ku saabsanaa gobolkeenii iyo koonfur galbeed guud ahaantiisa xaaladiisa sidee tahay iyo wax qabadkii loo baahnaa ee anaga dhanba aan u soconno oo aan rajaynayno insha Allah inaan qabanno aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan inta meeshaan ka soo qayb gasho dhan salaamantiin mansab iyo magac waxa ku fadhisaanba waa ku salaamantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهذا السفر وساعد الله كدقي وحسك لي هاي دالو لكن رمانت الشعور كي آدي وكعسي هاي سو دوين في عن وتكون ما تسنتين عبد الله أحمد علي تلفزيون كصومالي كيبل نيروبي qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah stuudiyiisa magaalada Nairobi waxaan idin akhrinaya aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga iyo dhammaan wariyaashiga la qayb galay tabinta warka dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.